Waxaa hubaal ah in guushu ay tahay arrin iyo mabda' uu qof kastaa jecel yahay inuu gaadho, balse waxaa lagu kala duwan yahay dariiqada lagu raadiyo iyo xeeladaha la adeegsado. Si loo gaadho hayaankan aadamuhu oo dhammi ka siman yahay, maalin kasta ay qorraxdu soo baxdo waa cusubna uu baryo, waxa uu aadamuhu u jarmaadaa raadinta iyo ka midho dhalinta loolanka uu kula jiro nolosha, saldhiggiisuna yahay gaadhidda fiinta sare ee guusha. Laakiin cidda guusha gaadha waa dadka hormuudka ah ee lagu daydo, ama inta badan lagu hamiyo in la gaadho marxaladda ay ku sugan yihiin. Kuwa xaqiijiyey riyooyinkoodii, ku guuleystay yegleelidda noloshoodii ay in badan ku taameeyeen, dadkoo dhammina ay farta isku fiiqeen inay yihiin kuwo ka gun gaadhay hayaankii guusha. Muuqaalkeena maanta daawadayaal waxaan ku soo qaadanaynaa 5 ka mid ah astaamaha ay leeyihiin dadka guulaha gaadha, si aynu innaguna raadkooda u qaadno. Magacaygu waa Cabdixakiin Maxamed, halkanina waa Bufaas Media. Ku soo dhowaada daawadayaal muuqaalkeena maanta. Fadlan hadday tahay markii kugu horreysay noo soo booqatay, subscribe-ta hanaga ilaawin. Lambar 1, haddii aad dhab ahaantii raadinayso guul, waa inaad joojisaa cudurdaarada iyo marmarsiyaha aad cuskanayso, waayo waxba kama faa'iidaysid balse dib ayay kuu dhigaysaa. Tusaale ahaan, isweydii haddii ay maanta shaqo kuu taallo, ugu dambeynna shaqadaasi laga rabo inaad berri soo gudbisid, ma u tafaxaydanaysaa dhalinta iyo fulinta shaqadaasi, mise waxaad ahaanaysaa mid ku marmarsiyooda duruufaha aan dhammaadka lahayn ee sida joogtada ah maalin walba inoo wajahaya? Dabcan waxaad ahaanaysaa mid waaya kalsoonida shaqadiisa, wax guul ahna aan ka xaqiijin nolosha. Waxa uu mar walba daawade mid alla tala saartaa, tigsigiisana ku toosan. Waa hubaal inaad qaadatay tallaabadii koowaad ee hayaanka daalka badan ee guusha. Qodobka 2, dadka badanaa nolosha guulaha ka gaadhay waxay wax u taraan dadka kale, waayo heerka ay gaadheen kuma gaadhin keligood, ee waxay ku gaadheen caawimaad iyo gacan qabasho uga timid dadka kale. Sidaasi awgeed, ahow mar walba mid gacan qabta dadka xilliyada uu awoodda u leeyahay gacan qabashadooda. Waa hubaal inay kuu furayso qalbiyada dadka aad la nooshahay, sidoo kalena ay kuu horseedayso caqiido suuban. Qodobka 3, marka ay liibanayaashu ama guulaystayaashu u socdaan inay xaqiijiyaan yididiilooyinkooda, waxay u shaqeeyaan habeen iyo maalin si aan kala go' lahayn. Ma daalaan mana caajisaan ilaa ay xaqiijiyaan waxa ay raadinayaan. Dadkani waxa ay toosaan habeenkii si ay u raadiyaan yididiiladooda, isla markaana waxaad aragtaa iyagoo subaxiina raad guridiisa ku jira. Ha sugin guul adigoon beddelkeeda la imaan shaqo badan oo caqli iyo xeeladi ku dheehan tahay. Qodobka 4, haddii aad dib u raad gurtid taariikhda, waxaad helaysaa in dhammaan guulaha la gaadhay wakhti kasta ay ku hareeraysan tahay awood iyo karti aad u heer sarreysa, taasi oo ka dhigtay in dadka guulahaasi gaadhay ay marba marka ka dambeysa u sii dhowaadaan heerka ay hiigsanayaan, iyagoo isla markaasina awooddoodu sii kordhayso.